bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan khiyaarta wadeega daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay oo hadahana kale ka daawataan page-kan inta maqalkan soconaya hadduu eebaydmo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan mucaaradka oo shuruudii koowaad hordhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba shuruudaasi maxay tahay intaan ku soo gudbin fadal maqaalka leega saar oo sheer garay waa 16 bisha May ee 2026 walwareedkan intaan ku faahfaahin fadal maqaalka leega saar oo iska sheer garay aynu ku bilownay saaxiibayaal xubnaha golaha mustaqbalka oo maanta wada hadal toos ah la yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama la furay ayaa shuruudda koowaad ka dhigtay marka hore in dawladdu ay sii deyso gebi ahaanba dadka shacabka ee dawladda u xiran kuwaas oo kuwa ka aragti duwan cabashooyin ay muujiyeen dartoodna loo xiray waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal wararka qaar ayaa sheegaya dhanka madaxweynuhu inuu aqbalay xubnaha mucaaradka qodobka ay soo jeediyeen lana filayo dhammaan in la sii daayo dadkii rayidka ahaa ee halkaasi lagu xirxiray shuruudan ayaa loo arkaa mucaaradku inay ku doonayaan inay ku soo dhaweystaan dadka ka fikirka duwan dawladda ee dagaalka kula jira maadaama maalmihii la soo dhaafay dhalinyaro kala duwan oo la barakiyay ay muujiyeen mudaharaadyo sidoo kale mucaaradkuna ay banaanbax ka awaabuleen magaalada Muqdisho kadibna loo ogolaaday in ay garoonka injineeriyihiisa ku qabsadaan halkaasna oo ku burburay qaar kalena ay halka ku mudaharaadeen dhanka kale mucaaradka ayaa qodobkan wuxuu uga dhigan yahay sharciga koowaad ee wada hadalla in lagu furo si rasmi ah ayaa waxa loo dhigaya dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin soo kama dhigna in rag loo dhiman karo oo qadiyad iyo abaal ku leh bulshada dhexdeeda inay yihiin hadalka waxa yiri gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo ka falceliyay dalabka mucaaradka waxa kale oo ku sii daray sidoo kale qalbiyada iyo dareenka dhalinyarada xiran iyo qoysaskooda buu yiri soo kama dhigna nidaam bir ah oo ay jebiyeen mucaaradka si kastaba ha ahaatee wada hadalladan bilowday ayaa jawi degan ku socda oo dhexdhexaad uu ka yahay Mareykanka ayaa si habsami leh uga soconaya xayndaabka xerada xalane ee magaalada Muqdisho iyadoo diiradda lagu saarayo xaaladda akiran ee dalka gaar ahaan hanaanka loo wajahayo doorashada dalka sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isagana wuxuu ku sheegay shirka inuu ka socdo xafiiska dawladdu ay ku leedahay xayndaabka xalane waxaana ka qayb galaya baa leeyiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed halka dhinaca kale golaha mustaqbalka uu ku matali doono madaxweyne Cabdullaahi Saciid Deni iyo madaxweynihii hore ee dawladda federaalka ahayd andoo ku meel gaarka ahayd madaxweyne Shariif Sheekh Axmed waa kulankii ugu horeeyay ee noocan oo kale ah oo ka dhaca xalane isla markaana ay door weyn ku yeeshaan beesha caalamka si loo arko xaaladda kama dambaysta ee khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaalida waxyaalihii dambe saaxiibayaal ka soo cusbanada muuqaalada kale ayaad ku daawan doontaan fadlan maqaalka leega saaro share garay nabad